warbaahinta dunida ayaa aad uga hadlaysa weeraro isxigay oo gelinkii dambe ee maanta ama caawa fiidkii horeba ka dhacay magaalada Beirut oo xarun u ah waddanka Lubnaan. waxaa la soo sheegayaa in weeraradaasi ay ka mid yihiin kuwii ugu adkaa ama ugu xumaa oo dunida ka dhaca. khasaare xoog leh ayaa la soo warinaya, inkastoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan xog buuxda ama dhammaystiranna aan weli laga helin. waxaa qadka telefoonka ku jira agaasimihii hore ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed Liibaan Cabdi Cali oo arrimaha carabta iyo dunida muslimkaba aad wax uga qora. ustaad Liibaan, soo dhawow. waxaa iga warantaa Lubnaan iyo xaalkeeda caawa siduu yahay. Lubnaan waxaa ka dhacay qarax weyn, laba qarax ayaa la tilmaamay inay ahaayeen waxa dhacay. laba qarax waaye, mid way xigeen oo waxa u dhaxeeyay ilbirqsiyo. hase yeeshee waxay ka dhasheen ayaa la leeyahay labadan qarax, laba qarax oo aad u waaweyn ay ahaayeen. waxay ka dhasheen ama ay ka dhaceen bakhaaro waaweyn oo ku yaala dekedda magaalada ku taala Beirut caasimadda Lubnaan. wasiirka iyo mas'uuliyiin wasiirka amniga gudaha iyo nin u hadlay booliska waddanka Lubnaan labadu waxay sheegeen in qaraxyadan ay ka dhasheen walxog qarxa oo maadooyinka aadka qaraxa ugu nugul ee loo adeegsado oo horey ay dawladdu ula wareegtay oo ku jiray bakhaaro waaweyn oo ku yaala dekedda. marka laga hadlo nooca qaraxyadu sidaas ayay u dhaceen, aad ayay u xoog badnaayeen. ilaa hadda waxaa la sheegayaa in khasaare dhimasho badan uu jiro, khasaare dhimasho dhaawac oo badan uu jiro, burbur aad u laxaad lena wuu ka dhashay arrintan. waxaa ilaa hadda la sheegayaa in ay dadka dhintay ku jiro in xisbiga la yidhaahdo Al-Kataib ee dalkaas Lubnaan xogeeye guud ka ahay. waxaa kaloo la sheegay safiirka dalka Kazakhstan oo safaaradoodu ay halkaas ku taalo Beirut in uu dhaawac soo gaaray. waxaa kaloo jira dhibaatooyin kale oo dhaawacyo fara badan ah. isbitaalada oo dhan heegan ayaa la geliyey. waxaa magaalada dawladdu ay aqoonsatay inay tahay magaalo tabaalowday oo maaragtay aaf ay ka dhacday oo ay tahay in gurmad badan loo fidiyo. marka so far ilaa hadda waxa dhacay waa halka intaas. faahfaahin dheeri lama bixin. ra-iisul wasaaraha dalkaas Diab ayaa lagu wadaa inuu dhawaan hadlo oo uu faahfaahin ka bixiyo bal waxa xiga iyo sida ay wax yihiin. weli laguma fiiqin cidna farta oo ku saabsan cid laga yaabo inay ka dambayso ama xiriir la leedahay. waxaa loo badinayaa inay yihiin wax ka dhashay maadooyinkaas sida dawladdu macluumaadka hordhaca ay ku sheegtay. qaraxan wuxuu dhacayaa iyadoo la filayay inuu soo baxo xukun ama maxkamadu ay go'aan ka gaarto arrinta ku saabsanayd dalka Lubnaan ra-iisul wasaarihiisii oo la dilay 2005 qarax aad u xoogganaa oo asna magaalada dhexdeeda mar kolonyadiisu ay socotay lagu dilay. marka ma jirin ilaa hadda cid sheegatay ama cid inay xiriir la leedahay sheegtay. marar badan oo dunida ayaa dawladda Lubnaan uga tacsiyey khasaaraha kuna yaboohay inay caawimaad siin doonaan wixii ay karaan oo ay u baahan tahay. Turkiga, Qatar, Urdun iyo dalal kale oo badan, Maraykanka, Midowga Yurub waxay sheegeen in qaraxan daryankiisa iyo xooggiisa laga maqlay ama uu xataa laga dareemay jasiiradda Qubrus oo xeebka xad kala leh oo ilaa 240 kilomitir u jirta Beirut. marka qarax aad u weyn oo ahaa, burbur badan uu geystay, khasaaraha nafeed iyo dhaawac ama burbur hanti uu geystay. weli dawladdu faahfaahin kama bixin, laakiin inta la arkayo aad u xoogan yahay. Liibaan, qof way dhinteen. marka intaasaan ilaa hadda ka ognahay. Liibaan, waa mahadsan tahay. waxaan rabaa Lubnaan waa dal noocee ah? weeraro ma ka dhacaan? argagixiso ma ka jirtaa ama foodo iyo dhibaatooyin waddankaas siiba magaalada markaa eegtid magaalo noocee bay ahayd? dabcan Lubnaan wuxuu ku yaalaa meel xasaasi ah. wuxuu hadda leeyahay dalka la yidhaahdo Suuriya. wuxuu hadda leeyahay Israa'iil oo dhulalba ka haysata masaaric dhul beeraleyda Shabca la yidhaahdo weli qaybo ka mid ah ka haysata. waa dal ay ka jiraan ama soo maray dagaallo sokeeye oo aad u fara badan oo horey dalka uga jiray oo la isku riiqmay 80-meeyadii. duulaan weyn ay Israa'iil ku qaaday 2006 duulaan kale oo weyn ayay ku qaaday oo aad loogu riiqmay. Falastiiniyiin badan ayaa ku sugan. kooxo dagaal sokeeye hore u dhaxmaray ayaa dalka joogaan. dal madaahibta iyo caqiidooyinka ay dadku haystaan ay kala duwan yihiin waaye. waxa ugu badan waxay ka kooban yihiin dadka Lubnaan Sunniyiin
oo badanaa ra-iisul wasaarenimada dalka qaata iyo shiicada oo la siiyo golaha baarlamanka iyo niman maaroniyiin la yidhaahdo oo iyaguna matalaad kula dalka iyo masiixiyiinta oo madaxweynaha dalka qaata marka waa dad madhab ahaan iyo caqiide ahaan relatively kala duwan intooda badan ayna ku badan yihiin hogaamiye kooxeedyada waxaa loo yaqaano ama dadkii dagaaladii hore ee waddankaas hore uga soo jiray ku lugta yeeshay oo generaalo iyo ay ku jiraan generaal Michel Aoun, Nabih Berri, Hassan Nasrallah Lubnaan maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha oo Michel Aoun aduu weli jumblad magacyadaas kama baxaan muuqaalka siyaasadda muddo dheer ayayna ku jireen waa dal marka la isku yabyabo oo xukuumad wadaaga mar walba la soo dhiso oo ra-iisul wasaaruhu meel ka yimaado oo jabhad kasta ama koox kasta ay wasiiro iyo koota ku yeelato golaha kadibna marmar kalsoonida lagala laabto shalay waxaa iscadilay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka cabanayay xaaladda dhaqaalaha waddanka oo aada usii baaba'aysa oo hoos ugu sii socota walwal badan laga qabo waxaa jiray baaqiyo ku saabsanaa in oo maxaa la yidhaahdaa banaanbaxyo ay mar kale dib usoo cusboonaadaan oo xala laga hadlayay marka waa dal ay intaas waxaa sii dheer inuu yahay dalku dal ay quwado kale oo gobolka iyo kuwa caalami ah ay isku hardinayaan oo Israa'iil ay ugu horeyso dana badan kale arrimaha carabta marmar waxay ka fulisaa weeraro gaadma ah oo dad lagu dilo ama lagu target garaysto ama Hezbollah ha ahaato ama kooxaha kale muqaawamada ee Falastiiniyiinta iyo kooxaha kale xag jirka ah ee regionka ka jira ha noqoto marka waa dal vulnerable ah oo nugul oo xaaladiisu ay wax badan uga duwanayn Soomaaliya iyo dalalka la midka ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa liibaan cabdicali agaasimihii hore ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu iga waramayay xaaladda waddanka Lubnaan oo ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen waxa uu yahay warka ugu weyn ee adduunyada musiibo ayaa lagu tilmaamay markii loo eego xaaladda dhacday dawladdu waxay sheegtay in magaaladu ay aafo ku hogatay ama ay la daalaadhacayso gurmud xoog leh ayay dalbatay in adduunyadu ciddii u kartahay ay ka caawiso dhimasho iyo dhaawac aan xad lahayn burbur hantiyadeed ayaa la soo warinayaa wix warar ku soo kordha Lubnaan waxaa ku eegi doonaa ama aad kala socon kartaan baraha bulshada internetka ku leenahay iyo website-keen iyo barnaamijyada soo socda